عليكم تلا بركات kusoo dhawaada channelkayga walaashinu macayman maanta waxaan rabaa sida cayilka la iskaga rido ee ugu sahlan inaan walaalaha la qaybsado insha Allah iga raala insha Allah dad si fiican kamarada uga arki weydaan waayo wati gacantan ku haya insha Allah waa mobile waxaan ku duubayo baan iga raali gelinaya akhwaati insha Allah marka waxaan rabaa maanta sida la iskaga rido coffee-ga green coffee waxa weyn waa isagoo saloolnayn oo green coffee la yiraahdo meel walba adduunka laga heli karo Soomaaliya Afrika oo dhan iyo Europe oo dhan meel walba laga heli karo sida ugu degdeg badan buu kaaga ridaya coffee-gu wuxuu leeyahay maadooyin aad masha Allah jirka ula dagaalama cayilka una fiican dadka inta badan cuntada aan xakameyn karin iyo ku cuntadooda ayuu aad ugu fiican yahay marka walaalahaas oo kale way isticmaali karaan aad bay u isticmaali karaan si taxadara oo loogu talagalay qiyaasta waayo wuxuu sameeyaa high level antioxidant buu haystaa masha Allah maadada antioxidant metabolismigaaga ayuu kor u qaadayaa masha Allah haddii aad tahay qof cuntada maanta oo dhan ku noqonaya cuntadii uu ka taxadarayaa masha Allah ka yareynaya energy level buu ku siinayaa masha Allah oo aad u fiican blood sugar-kaagana uu saxayaa masha Allah loo ka dhigayaa masha Allah waxa kale uu sameeyaa cholesterol-kaaga oo kale uu la dagaalamaya masha Allah hadda cholesterol jirkaaga ku jira aad buu masha Allah jirkaaga isbedel badan baad ku arkaysaa wanaagsan aad ugu fiican siiba dadka cayilka iska ridaya dadka doonaya dhexdooda jabiiba inay ka dhigaan masha Allah aad isku ogaada coffee-gaas waxa kale oo coffee-ga raba in ku darsataan waayo coffee-gu maado wuxuu sameeyaa calcium-ka jirka inuu la dagaalamo hadduu ka bato weeyaan od qiyaasi weydo sida darteed qiyaasta ugu badan aad qaadan kartid waa 1 spoon bad qaadan kartaa insha Allah wax ka badan lagu ma ogola akhwaati mid kale waxa weeyaan maadooyinka xagana ku soo diyaariyay qaar baa lafihi iyo calcium-kii baad ka helaysaa oo lafahaagi tiirinaya oo waxa weeyaan bacteria jirkaaga ka ilaalinaya la fight gareynaya masha Allah dhiigaaga cas masha Allah soo celinaya waxyaabo fara badan aad ka helaysid oo faa'iidooyinkiisa la soo koobi karin iyaga laftigooda skin-kaaga maqaarka digestive-ka calooshaaga inflammation haddii jirkaagu leeyahay cayilku intuu ka batay jirkaagu maadartay lafuu ku qaraacayaan dhibaatooyin caynkaas hadistii masha Allah la dagaalamaya waxyaabada aan meesha kusoo diyaariyay waxaas oo dhan baa kamid ah akhwaati masha Allah markaad isku qaadatiin faa'iidooyin fara badan baad ka keenaysaan waxaa kaloo ku jirta waxaad arkaysiin waa sokor ee burburan sokortan masha Allah sokor waxa la arki jiray caloosha constipation ku keenta laakiin tan kuma keento caloosha way dhaqaajistaa constipation-kana way la dagaalantaa masha Allah skin-ka maqaarkana way u fiican tahay iron bay leedahay fara badan oo masha Allah ku ah wayna fiican tahay inaad caruurta indhaha xitaa way u fiican tahay aragtida ilmaha macmacaanka haddaad u sameynaysaan sokortan inaad ugu dartaan aan jeclaan lahaa insha Allah waayo faa'iidooyinkayga lama soo koobi karo macmacaankana waa laga sameeyaa intaad sokorada kale insha Allah isticmaalaysaan iska joojiya insha Allah marka mid kale waxa weeyaan coffee-gan waa mid aan habeen biyo la dhigaysaa 12 saac ya la dhigaysaa biyo reason-kan uu la dhigay biyaha waxa weeyaan koobka darkiisa biyaha ayaan kula dhigay masha Allah waayo dadka qaar calooshoodu ma qaadi karto buushiga waxa la yiraahdo wad aragteen bariiska marka la radiyo maxaa ka baxa wax cad baa ka baxa waxa cad dadka isku calool maaha isku cilad way kala haystaan dadka qaar dadka cilada haysta bariiska hadaanan la radin oo biyaha laga meedhin markaas cunaan aan dib ku qabin laakiin markay toos u cunaan oo kale ku xanuusto bariiska cad ciladaas aad qabtaa marka waxa weeyaan coffee-ga waxaad sameynaysaa hal qaadaad radinaysaa markaad radisid biyaha waad ka qubaysaa waayo baalka saraa ka baxaya wax yar oo sida skin-ka oo kale ka baxaya waxaad calooshaada dhibaysa ka bacdi waxaad sameynaysaa waad karinaysaa dabkaad saaraysaa waxaad isla karinaysaa isaga iyo qorfaha dhaadheer iyo cacao kan waa shakoole jajaban shakoole waa laba nooc mid waa cocoa midna waa cacao iyaga kala marka kan waa cacao insha Allah isku qaldina weight loss-ka isaga u fiican wuxuu wataa masha Allah vitamina la soo koobi karin high energy buu ku siinayaa masha Allah isagoo iyaduna saasileeg waxa kale qorfaha bishuruud waa inuu kan noqdo qorfaha kana ugu fiican akhwaati ugu udgoon ugu caraf badan kanaan rabaa masha Allah inaad soo qaadataan oo mid walba aad soo qaadin insha Allah isku day inaad dadaashaan marka saas ku karisaan
wax yar oo sokortan aad ku darsanaysaa. sokortan aad ay u fiican tahay saan kuugu sheegay haddaad u baahan tahay weeyaan. haddii aad saa ku cabi kartina kaba sii fiican, laakiin qofku markuu jirkiisa barayo wax qadhaadh marmar way kuga adkaan kartaa. si aad adiga dib uga noqon goolkii aad lahayd amba meesha aad u socotay waad ku darsan kartaa, ma fi mushkila insha allah. marka dambe step baad uga jari doontaa maadaama inay calooshaada taageen. wax yar waad kaga darsanaysaa shiiday. haddaad doontid malabkaad ku darsan, laakiin biyo karkaraya ma raba inaad ku darsatid. waxaan rabaa biyo intuuna xoog u wada karayn wax yar inaad qaadada yar kaga darsatid insha allah, oo biyo qadaxa yahay. waxaan rabaa cuntooyinkan inaad cuntaan markaas hadday afurka tahay oo kale, qadada kale marka imika laga baxo rabadaan qada oo kale ku noqonaysaa, xilligan oo kalena afur bay ku noqonaysaa masha allah. suxuurta oo kalena kan oo kaleaba kugu fiican masha allah. suubkana waxaan ka sameeyey akhwaat saad arkaysiin waa lugaha lo-da lafahoogaan ka sameeyey. waa hal lug oo kaliyaata oo lagu soo tartaray ayaan ka kariyey suubka sameeyey. saas isku jijidanaysaa markay muddo saarnaato. halkaa lug waxaan aakhirkii markay soo bislaatay ayaan ku daray tamaadku inuu nool yahay wad aragtaan, basashii tamaadkii iyo waxaan ku daray rosemary, sage iyo thyme iyo sweet tamarind. intaasaan ku daray. gabadha suubkaas cabta hormoonkeyguna waa saxsanaanaya masha allah, maqaarkeygu waa fiicnaanaya masha allah. liidhanaan iyo filfil baad ku darsanaysaa. filfishan aad bay u udgoontahay, caraf badan tahay. waad aragtay waxay ka koobantahay kalaro badan, aad u caraf badan tahay. waad ku darsanaysaa masha allah, lagama sheekeyn karo. waxaa kaloo sameynaysaa akhwaati. tan kalena waxa weeyaan tabula salaad. waxaan ka sameeyey waa kamsarada wax yar ah, basal baarka, basilka iyo barsilka. waa labo, basil iyo barsil bay labay kala yihiin. reexaan baan odhan jirnay dhulkeena basilka, barsilka kalena ma haysanaba. bas ininka markaa dadka soomaaliya jooga waxay ka samaysan karaan kamsarada, reexaanta waxa loo yaqaano, nacnaaca, saddexdaa caleen waad haysataan iyaad ka samaysan kartaan, iyo basal baarta. waxaa kaloo ku daraysaan halkan waa bogweed waxa la yidhaahdo weeyaan, amba kiinwaag oo kale, laakiin adigu waxaad ku haysataan labada midna ma haysataan. waxaad ku darsanaysaa qamadidaadii ood karkarisaad ku darsanaysaa. maasha allah, lagama sheekeyn karo. taasaad ku darsanaysaa. romaankana uu yaalaa dhulkeeni si aad ogtiin. optionkaasaad haysataan maasha allah. inaguna dadka africa jooga isku daya. halkan waxa weeyaan digiro isku jirjira. digiradu markay isku jirjiraan waxaa la yidhahdaa salad beans bay la yidhahdaa, waa kuwa isku jirjira. waxaa kaloo ku daray olive, avocado iyo waxaan ku daray barbarooniga saddexda nooc. waxaan ku daray romaanka maasha allah, iyo cherry tomato. tomatoga yaryar aad u fiican yahay, macaan yahay maasha allah. intaasaan ku daray maasha allah. haddii markaa wax saliida ilaa waa qalayl saad ogtiin, saliida ma aragtay MCT oil ayaan maasha allah ku darsan kartaan. laakiin dadka Soomaaliya jooga olive-taad ku darsan kartaan. olive-ta freshka 100% waa ku darsan kartaan. haddaad haysataan olive-tiina ku darsadaan dhihi lahaa insha allah, waayo olive-tuba aad bay u fiican tahay, lagama sheekeyn karo. waxa cayilka marka qofku si iskaga ridayo degdeg iyaguna oo cayilkooga xoog laga rabo 20 kiilo 30 kiilo inuu iska rido. alaabtan oo maasha allah yakana waa green beanski, laakiin waa 7 shay oo la isku darayo maasha allah. qiyaas leeg baa la shiidaya. waxaa kaloo kula darayaa kamugan ayaan kula darayaa maasha allah. kabacdi maasha allah biyo karkaraya ayaan qaadada yar ee teaspoon ma aragtay takasiya. taad arkaysaan labadan qaado isku mid ma waa teaspoon, tani waa arkaysaan. haddana tana kasii yar, tan qaado leeg markaan soo shiido ayaan ku daro wax walba macalka mukaamogeyga 8 shay bay isku noqonayaan. ayaan ku darsanayaa koobkayga biyo kulul baa markaa kula daraya maasha allah. haddaan doono haddaad haysatiin falaaska caynkan oo kale waad kula karin kartaa dhib male 5 minutes isaguna maasha allah waad cabaysaa. lagama sheekeyn karaan kuuri weegalooskaaga duhur iyo subax marka imika rabadaanka laga baxo insha allah ee aad u fiican tahay, waayo rabadaanka lagu jiro digestive badan bay ku keenaysaa qofkiina wuxuu u baahan yahay maasha allah. laakiin energy fara badan baad helaysaa, lafa xanuunkii baad ka raysanaysaa, waxyaabo fara badan, cayilkii baa kaa tagaya, immune systemkaagii baa maasha Allah saxaya, metabolismigaaga baa saxaya, antioxidant wax la yiraahdo helaysaa. lafahaagii hadda inflammation haysatay iskuma arkaysid maasha allah, waayo waxa ku jira
maado aan kusoo diyaariyey oo aada ugu fiican dadka lafaa xanuunaan, inflammationka haysta, dhibaatooyinka haysta. waxaa kaloo ku jirta mid gaaska la dagaalanta oo dadka gaaska dhibaatada ku qaba calooshooda maanta oo kale markasta ay wax cunaan oo kale dhibaato u keento yaa iyadna ku jirta. lagama sheekeyn karo. marka weight loss degdega insha allah groupkayga mar dhow markay noqoto rabadaanka waa ka dhamaada insha allah. iyaka feedback insha allah nii soo celin doona ka warkeena insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. iga raali ahad wax yar baan rabay iyadna inaan uga wadaxiyo dadka Soomaaliya jooga. akhwaati ka faa'iideysta xabagta inaad cabtaan, bakteerigana way la dagaalantaa, weight lossna way samaysaa insha allah. iyada laftigeeda xabagta wadaysataan, daqiijiya iyadoo burburan baa taala. ka bacdi waxaad samaysaa hal qaado biyo ku sii radi qaadada wax ku cuno. ka bacdi subaxii markaad soo kacday biyo kulul ku durshub 3 koob oo kulul cab subaxii, habeenkiina 3 koob. kama sheekeynaysaan kuuli jirkaaga saasaa dhididku uga da-aya, daldalooladaada isfuraya, weight loss degdegaad helaysaa maasha allah. aad ka sheekeyn karin. waxaa kaloo leeyahay dadka Afrika jooga waad heli kartaan qamadideena iyo looskeena isku saloola akhwaati. intaad biyo ku radisaan marka hore oo biyihii maad aragtay ka qalajisaan, because biyuhu ku dhex bislaanaya marka hore. biyaha lagu radinaya markuu biyuhu ku dhex bislaado waad kar shubaysaa biyaha, waad qalajinaysaa, mara yar waxaad usoo qaadanaysaa, ka bacdina waad saloolaysaa. maasha allah qarrod baad ku shubanaysaa. lagama sheekeyn karaan kuuli akhwaati. gaajaday ka ilaalinaysaa. haddaad baxaysa, haddaad shaqo tagaysa, kanaad qaadanaysaa iyo biyahaaga caddaa. subaxii markaad quraac fuula cuntay khalaas waxaan kuuli lakama sheekeyn kartid. kani waqaduu kuu noqonayaa. hal qaada xitaa haddaad ku cuntay fuul baad noqonaysaa maasha allah. iyo xabad aabala iyo biyahaaga kama sheekeyn kartid. marka isku daya inaad saa u samaysataan ood ka faa'iidaan. waxyaabo badan heli kartaan baa jirta oo dhulkiina taala maasha allah. umadayma la-aanaysaan aad iyo aad insha allah. waxaan rajeynayaa like iyo share insha allah akhwaatiina channelka saartaan. wixii kale insha allah halkaas aad igala soconaysaan iyo qaybka masha allah weight losska loo sameeyo iyo feedbacka walaalahana insha allah inaan mar keeno aan codkooga insha allah aan rajeynayaa markaan guusha gaadhno nagu soo casuumana qolalka conference-ka insha allah aan ku sameyno weight losska insha allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel كاكي لوبنا نقل صعد halkaas insha allah wixii weight loss iyo sida loo sameynayo arrinkan insha allah waa qolalka hoose. sidaa darteed taxadar darteed aan rabaa marka walaalaha inaan ugu soo bandhigo si qiyaasta si sax ah u qaadataan oo inaan iga fakan insha allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.